بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، مقعي هو محمد أحمد علي الشيل وحلا إلى نيروبي وحكون والله هاي مقالة هرقيسة waxa maanta walaalayaal shirkaygan jira ay daaran yahay arrin taariikhi arrin ku saabsan taalooyinka magaalada Hargeysa ee taariikhiga ah. Taalooyinkaas oo ay ka mid tahay taalada diyaaradda iyo maaragtay taalada gacanta, taasoo iminka hadalkeedu igu sababay inaan maanta ka hadlo waxay u kalifay maadaama oo diyaaraddii meesha laga qaaday oo haddana la qurxiyay oo maaragtay system qurux badan loo sameeyay xukuumaddan Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad ugu mahadsan samaynta diyaaraddii decorationka iyo qurxinta la qurxiyay. waxaa dhacay diyaaraddani waxay ahayd taariikh ayay waddankan u hayd laakiin waxaad moodaa qurxintii la qurxiyay inay dhalan rogayso waxa weeye taariikhdii iyo ujeedadii taagneed. dhammaan dadka ka shaqaynaya arrinta ka shaqeeyay way ku amaanan yihiin, laakiin waxaan ku boorinayaa oo maaragtay ku dhiirigelinayaa inaanay isbedelin ujeedadii markii hore aan ugu talagalnay ama ujeedadii taariikhdan ahaydba. waayo waxaa dhacay diyaaraddani waa diyaarad dhib geysatay oo waddankan burburisay maal iyo mood. sidaa daraaddeed argadan iminka taagani inay ka turjunto wixii loogu talagalay ayaa muhiim ah. fikraddan iyo hal abuurkan anigaa runtii lahaa. waxaa la hirgeliyey maayarkii Cawl Cilmi Cabdalla, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto. nin wanaagsan oo sharaf iyo karaamo leh buu ahaa, ninka suurtageliyey buu ahaa. haddii isagoo aanay jirin hawshaasi noomay suurta gasheen. inkastoon ka fikirno laakiin fulinta isagaa fuliyey, waanu ku ammaanayey, waananu maaragtay ugu ducaynaynaa insha allahu tacaala. sidaa daraaddeed taas wataa oo waxa weeye ta ku saabsan taaladan diyaaradda in maaragtay taalada lagu caddeeyo dhibtay diyaaraddu geysatay. taalada kale waxa weeye taalada gacanta ee ku taalla maaragtay sideedaad. run ahaantii taaladaasi waxay u dhisan tahay oo u taagantay waa astaantii halganka wey. siday u samaysantay waxa weeye seergalkay ku taagantay xabaashi wey. gacantuna waa gacantii raggii waddanka u dhinto ka soo dhex baxday. qaaraddii gacanta ku hayaana waa qaaraddii Somaliland. insha allahu tacaala waxaan ku ammaanayaa maayar Cabdikariim Mooge inuu maaragtay astaanta halganka ka shaqeeyey oo uu hagaajiyey, waxyaabihii ku hareeraysnaana uu ka qaaday. waxaan kaloo u sheegayaa maayar Cabdikariim Axmed Mooge gacantaasi maadaamay gacantii halganka ahayd in lagu sawiro lixle laguna qoro dagaalkii Burcaduure. waayo ujeedada aanu u samaynay beriga waxay ahayd astaantii halganka. lixle cid ka mudan oo lagu qorayaana run ahaantii aniga anu saasan ku talin lahaa. taasi waa codsi aan ka codsanayo maayarka. taasi waa taa oo waxa weeye wax kastoo adduunyada jira cid baa leh. hal abuurkan iyo fikradahan run ahaantii dhalinyartii waxaan ahaa xilligaa sidii maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen waddankooda dhismihiisa. dhalinyartii kaga qayb gashay aargooyinkan ayaan ahaa shaqsigii hal abuurka iyo fikradda diyaaradda ayaa lahaa. waxaan dhigan jiray iskuul farsamada gacanta oo ku yaalla 150 oo nin Idris loola jiro haafeeyo ka soo guuray oo haysan jiray. iskuulka markaa ka soo baxay waxaan u shaqo tagay Carab Soomaali company hodan company waa bari group
halkaa waxaan isku baranay nin xasan loola jiray dabeetana ninkaa xasan loola jiray oo farsamo yaqaanna ahaa ayaan usoo bandhigay arrinkan arrintii markii aanu maaragtay aartigeedii samaynay yacni waxay igu adkaaday inay fusho arrintaasi in diyaaradda laga soo qaado airportka oo halkaa laamida la saaro yacni anna nin dhallinyaraha baan ahaa yacni aad baan uga fikiray hawsha ilaahay subxaanahu watacaala markii dambe uu socodsiiyey waxaana maaragtay socodsiiyey cawl cilmi cabdalla allah u naxariistay sidaa daraaddeed maantana waxaan u hadalnay wax kale maaha maadaamay dowladdani mugsiyam samaysay hawshiina diyaaraddii dee dib loo hagaajinayo yacni dadkii fikraddan lahaa waa in wax laga weydiiyo in maaragtay diyaarna waxaan u nahay talo iyo tusaaleba oo qorshooyin kale xataa u haynaa maaragtay hal fikir baan imika hayaa halkaa fikirna waxaan siin doonaa insha allahu tacaala maayarka fikrad waddankan magaalada anfacaysa yani qaasaan hargeysa magaalada hargeysa aad wax ugu taraysa way u baahan tahay imika wax badanna ku kacayn marka insha allahu tacaala sidaasaan u sheegaynaa subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu noocyada cashuuraha tooska ah qaybta labaad cashuurta madeganayaasha waa cashuurta dakhliga aan joogtada ahayn waxay ku waajibtay dadka aan dalka deganayn balse dakhli ka soo galay hawl ay u qabteen cid kale oo dalka deggan sida hawla taliyanimo faa'iidada ka soo gashay saami shirkadeed dakhli kiro amba dakhliyo kale waxaa xeerku waajibinayaa inuu ka jaro oo uu soo bixiyo wakiilkiisu amba cidda uu u qabanayo hawshaas ee bixinaysa lacagta shaqadaas xaddiga cashuurtani waa 10%. cashuurta dakhliga daaraha cashuurtani waxay ku waajibtay mulkiilaha daarta kiraysan iska leh waana mid sannadla ah xaddiga cashuurta dakhliga daaruhu waa 10%. cashuurta macaashka ganacsiga sida uu qeexayo qodobka 69aad ee xeerka dakhliga cashuuraha bariga jamhuuriyadda Soomaaliland cashuurta macaashka ganacsiga waxaa loola jeedaa dakhli kasta oo qof amba shirkad ka soo gala hawlgal ganacsi waxaa lagaaga baahan yahay xisaab xidhka cashuurta macaashka ganacsiga oo ah sannadle ugu dambayn bisha afaraad ee sannadka cusub cashuurta macaashka ganacsiga waxaa loo bixinayaa qiimaynta xafiisku sameeyo ee ka timid xisaab xidhka cashuur bixiyaha amba qiimaynta kale ee uu xafiisku ka sameeyo xog aan ahayn xisaab celinta xaddiga cashuurtani waa 10%. waxaa intaa soo raacaya xaddiyo aad u yaryar oo ah cashuuraha maamulka iyo moorka kuwaas oo raaca cashuuraha ku dhaca dakhliga soo gala jeebka qofka